daawadayaal muuqaalkaasi aad u jeedaan waa dagaal maanta ka dhacay deegaanka Biyacade ee gobolka Shabeellada Dhexe. Shabeellada Dhexe dagaalada ku soo noqonaya waxaad moodaa inay culays xoogan kooxda argagixisada shabaab ay saarayaan iyadoo waliba ogsoon tihiin in degmooyin ka tirsan gobolkaasi ay maalmihii la soo dhaafay la wareegeen kooxda argagixisada ee shabaab. dagaalkaas Biyacade iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladda guud iyo gacan ku haynta deegaankaas ba waan dul istaagaynaa. waxa dhinaca kale tooyadana dul istaagi doonaa degmada Balcad, El Baraf, Al Kawthar, Daaru Nicma, El Ali Ahmed iyo guud ahaan deegaanadii maalmo dhaweyd ay kooxda shabaab la wareegeen iyo xaaladda guud ee deegaanadaasi ayaan iyadana soo qaadan doonaa. dhinaca kale waxaan dul istaagi doonaa waftigii uu hogaaminayay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayna ku weheliyeen garsoorayaal sare oo ka mid yahay garsooraha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida oo qayb ku wehelinayay safarkaasi oo la sheegay inay gacanta ku dhigeen odaygii ahaa Hebel Wabiir Cabdi Wabiir inuu habaan malay odaygaas oo ay gacanta ku dhigeen iyo safar ujeedka safarkooda iyo rag kale oo lagu tuunsan yahay inay shir qooleen ciidankii macawisleyda iyo kuwii dawladda oo kooxda khawaarijta ay la shaqeynayeen iyadana waan soo qaadan doonaa. waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa fashilka amni ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa maanta haysta 3 sano oo dagaal lagula jiray argagixisada laguna faantamayay dalka inta badan in la qabtay iyo maanta oo shabaab ay dhul 300 kilomitir baaxadiisa markii la isku dardaro dhan ay dib ula wareegeen iyadana waan dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nagula wadaaga qaybta commentiga. aynu ku bilownaa gobolka Shabeellada Dhexe marxalad aad iyo aad u adag ayuu horta wajahayay maalmihii la soo dhaafayba welina way haysataa kooxda argagixisada ahayd ee tabarta yarayd nafla caariga ahayd ayaaba babaxsanaysaba oo ciidankii dawladda iyo macawisleydi ayayba ku babaxsanayaan oo ay doonayaan inay dhul la wareegaan qabal ka warrama. waxaa la tijaabiyey oo la sahamiyey maanta marxaladda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro tabarta Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa kalsooni darrada maanta ciidanka ay ku qabaan Xasan iyo xukuumaddiisa ayay horta la tijaabiyeen kooxdu. bal ka warrama haddaan inay idhaahdo ilaa iyo intii ugu badnayd degmooyinkii Shabeellada Dhexe bay la wareegeen ee Hirshabelle way gacanta ku dhigeen. El Baraf bay qabsadeen, Balcad bay ka dambeysoo qabsadeen, Mirtaq way qabsadeen, Al Kawthar bay qabsadeen, Daaru Nicma bay qabsadeen, El Ali Ahmed bay qabsadeen, war soo wad meeqa tuulo kale ayaa deegaanada hoos yimaada. intaasoo dhul ah ayay shabaab maalmo gudahood kula wareegeen. weliba inta badan markii laga reebo degmada Balcad ee duleedka magaalada Muqdisho inta kale one day bay la wareegeen. waa one day. waxaa intaas sii dheer culays xooggan bay saareen ciidamadii geesiyaasha macawisleyda ee gobolka Hiiraan. dagaalada ka socda iyada buulo barde dusheeda iyo deegaano hoos yimaada oo Aboorey iyo ilaa iyo Beera Yabaal dagaalada iyadana ka socda wada ogsoonayeen ilaa haddana socda. dagaaladaas ciidamada iska caabid xooggan bay kala hortageen oo waad aragteen Telegramka meydadka argagixisada oo saa u daadsan waad aragteen oo meel walba saa waran. laakiin meesha lagu ba'ay ee lagu hoogay ee waxba la iska celin waayay ee argagixisada ceebta maanta Soomaaliya haysatay ay argagixisadu dhigtay waa Shabeellada Dhexe weey. hal mar bay intaasoo deegaana la wareegeen. Balcad baa ugu dambeysay shalay bay la wareegeen. saakana waxay dagaal ku qaadeen Biyacade oo weliba intay markii hore la wareegeen ay gacanta ku dhigeen ayaa ciidanka dawladda mar kale soo rogaal celiyay oo gobolka la isku ritay sidii qadal la isku waayay. laakiin markii ugu horeysay way la wareegeen magaalada Biyacade way la wareegeen. argagixisada la wareeg shabaab la wareegeen oo gacanta ku dhigeen saakana hortiiba maanta oo dhan iyaga maamulayay. bal ka warrama ma inala tahay ciidanka dawladda Soomaaliyeed ee waxa weeye ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee tababarada casriga wata ayaa laga adkaado argagixisa ka adkaatay oo dagaal baa lagaga adkaaday. ma inala tahay maya lagama adkaan. awood xumo kuma dhicin ciidanka tabar yare kuma dhicin waxa ku dhacay kaliya waa hogaamin xumo. waxay sababtay in ciidankii
deegaanadii ay joogeen dib looga qabsado oo argixisada ay gacanta ku dhigto waa hogaamin xumo hogaamin xumada yaa hogaamin xumada keenay xasan sheekh maxamuud iyo hogaanka uu soo dirsaday ee ciidamada uu soo diray baa sabab u ah maxaa la rabaa marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa in ciidanka la moraalkooda la saxo in ciidanka waxa weeye la dhiirigeliyo in agabyada ay u baahan yihiin lagu dagaalamo ilaa loo dhammaystiro in miishaarkooda la siiyo in la joogteeyo booqashadooda in halka ay joogaan lagu booqdo in kuwa dhaawacmay la daaweeyo si nadaama loo daaweeyo taas bay ciidanku moraal ku heliyaan ku dagaalami karaan laakiin haddii ciidanka kii dhaawacmay uusan waxa weeye la daawada helaynin oo lagu dayacayo isbitaallada kii furinta ku jirayna aan loo tegaynin mishaarkiisina bannaanka lagu qaybsanayo qofkuna qof adigoo kale u yahay oo 9 bilood ku dhashay u yahay xabadu dhow markay tiraa uu ka baxayaa meesha furinta uu bannaynaya ama kooxduba heshiis la gelayaaba oo uu leeyahay soo gala waa inaga baxaynaa maanta marka ceebta 3 sano kadib in haysataay oo saraakiisheenii iyo ciidankeenii intay ku dhammaadeen dhulkii la xoreeyay maanta haddana dib ay kooxdu u qabsanayso waa taa shabeellada dhexe gacantu ka baxay waxba fiirinina waxaan didaya uuska waaweyn ee wada mufaacuneenka meelaha diday waxba fiirinina shabeellada dhexe gacantu ka baxay iyadoo adeegsoontiin ciidankii galmudug inay joogaan kii hirshabeelle inay joogaan kii dowladda federaalka inuu joogo kii waxa weeye macawisley inay joogaan kuwa qabiilo oo tiktokerley hogaaminaysa inay joogaan waxaasoo dhan waxba alla kaba abay maalin walba meel bay sii qabsanayaan kooxdii argagixisada oo gacanta ay ku sii dhigayaan waa ayaan daro inteeda leegwey waa musiibo taasi waa midda shabaab maanta biyaha ay qabsadeen wari xal shalayna bal caday qabsadeen daraadna waxay qabsadeen ceel cali axmed alkawthar daaru nicma ceel baraf sawad mirtaqwa deegaano fara badan ma shisheey karo halka kuma soo koobi karaba ayay gacanta ku dhigeen weeraro joogtay wadaan wuxuu u muuqdaa marka shabeellada dhexe inay la wareegi doonaan haddaan qaab dhismeedka iyo hanaanka hadda taagan wax laga bedelin way la wareegi doonaan oo xaqiiqa taasi horta waa dagaaladii maanta dagaaladii maalmo dhowey rag waxaa jira shirqool la sameeyey oo ka mid yahay sheeg ninkii la dhahay cabdiwajiis miyuha mise cabdiwabiir uu ka mid yahay cabdiwabiir isagoo meel dagaala lagu ogaa unbaa la maqlay waxa uu aaday meesha la yidhaahdo eken meesha la yidhaahdo shabaab baa qabsadeen oo isagoo calankii madooba hoos yaallo oo qudbaynaya oo leh walaayada islaamka ayaa cafido noo leh unbaa la maqlay warileeno warinkasoo ninkii nala dagaalamay abaaduulihiina maaha macawisleyda maaha nimankaas u tegey haddana habeenkii dambe isagoo degmada aadan yabaal fadhiya oo leh waxa weeye nimanka waa kasoo goostay unbaa la arkay ninkaa shuuta gacanta loo geliyo waxaa leeyahay shuuta ninkaa baaritaan ku samey war iyo xaal waa la hayaa gacanta lagu hayaa waynu eegi doonaa wixii kasoo kordha hadduu allayno ceeb weyn baa taagan kooxdii argagixisada ahayd baaba saa u qalan dhacsanaysa 3 sano kadib xasanna anigu waxaa sidan hadda muuqataay haddaan wax laga bedelin argagixisana shalay aad ogsoonaydeen balcad oo 25 kilomitir muqdisho u jirtay inay qabsadeen haddaan wax laga bedelin madaxtooyada la wareegayaan rag kalena war hoose bay soo direenoo duqa xasan ah helicopter baa u taagan baa leeyay meel madaxtooyada agteeda oo uu rabaa inuu ku baxsado haday nimanku soo galaan madaxtooyada helicopter baa halka loo dhigaa leeyahay si kastaba kooxdu waa diday waa xawli bay ku socdaan ummadda Soomaaliyeed ay fadhiga iskaga kaca dawladda sugnaayay ma jirto xasan wax walba waa dayacay wax walba uu qaban loo shaqo walba uu qaban laa waxa uga roon wax yaroo mudnuudsi ah oo dawlad laga soo qaato jaag yara iyo boos la iibiyo oo intii la qaato waxa ay dibadda la aado intaas oo uga qiimo badnaatay fadhiga laga kaco argagixisada laga iska celiyo fadhiga laga kaco wargixisada la iska dhiciyo oo fadhiga iskaga kaca nimanka 25 kilomitir muqdisho u jiray qabsaday maxaa muqdisho maxay waxa weeye ku tahay inay qabsadaan waxba kuma way qabsan karaan muqdisho marka fadhiga iskaga kaca wixii ka soo kordho waynu eegi doonaa hadduu allayn